assalaamu calaykum. waxaynu hore u soo marnay mashruuc la yidhaahdo the golden billion ama bilyanka dahabiga ah oo ah qorshe ay ku doonayaan mas-uuliyiintu in dadka adduunka laga soo reebo 1 bilyan oo keliya oo loo talin karo oo hal meer laga wada maamuli karo gebigoodaba dadka inta kalena la tirtiro tirtirkaas sidii la doonaba ha loo maro taasi waxa ay sababtay in adduunka masiibooyinka lagu baahiyo ama masiibooyinka sida dabeeciga u dhaca la sii tabantaabiyo oo la sii kobciyo. waxaa qodobkan si wanaagsan u fahmayay dadka badanka daawada filimada marka qof la dilayo waxaa kala jira laba qaab oo la kala yidhaahdo dilka taban iyo dilka togan. kan bositifka ahi waa in qofka aad si toosa u disho wixii aad doontaba aad u adeegsatide. kan negatifka ahina waa in qofka aad si dadban u disho adiga oo ka fogaanaya in eediisu ku raacdo, sida in qofkaasi uu xiiq leeyahay baalkii yaraa ee wafka ku buufisan lahaana uu agtaada yaallo kadibna ay xiiqdii ku kacdo oo adiga oo doonaya inuu dhinto aad neeftiisa yarada agtaada taallay u dhiibi weydo amaba ka qariso amaba aad u taagi weydo isagoo aan soo kici karin, ama isaga oo dhiigbaxaya oo dhaawac gaadhay aad dhiigga u qaban weydo oo ku eegto dhiigbaxa ilaa uu dhiiggu ka dhammaanayo oo dhimanayo. nidaamkaas ayay u mareen soo yaraynta tirada dadka adduunka. waxaynu u bixinaynaa markaas mashaariicda noocaas ah maalgashiga masiibooyinka. waxaa jira masiibooyin ay iyagu ka dambeeyeen oo soo abaabuleen oo dadka adduunka ay guud ahaan tiradooda ku dhimayeen oo ku yaryaraynayeen, iyo qaar si rabbaaniya u dhacay laakiin ay iyagu baahintooda qayb weyn ka geysteen ama ha sii fidiyaan masiibadaas ama doorkaas ah dilka negatifka ee aamusan ha ka qaataan oo ha u shuuriyaan inta ay meeshaasi waalanayso. kuwa iyagu ay tooska u fuliyeen haddii aynu eegno kasoo bilow dagaalkii koowaad ee dunida oo deegaanka uu ka dhacay inuu yurub ahaa se ummad kasta oo ka mid ahi ay ku dhinteen oo gumaystayaashii ay geeyeen dadkii ay gumaysan jireen intay askar ka dhigeen. markii la tirakoobay dadkii ku dhintay waxaa la ogaaday in 2% dadkii adduunka xilligaas ku noolaa ay dagaalkaas ku naf waayeen. soo raac oo kaalay dagaalkii labaad ee kii hore kasii wacdaraha iyo waayaha badnaa, isagana dadkii adduunka waa lagu yaryareeyey. qoladii shuuciyadda ahayd bilowgoodii ilaa dhicitaankoodii intii u dhaxaysay 1917 ilaa 1991 siyaasaddaas ah yaryaraynta tirada aadamaha ayay ku jireen oo sideeda ayay u fulinayeen. oo hogaamiyihii shuuciga ahaa ee ugu dadlaynta yaraa waxa uu ahaa maxamed siyaad barre. ka ku soo dhowdhow isagu waxa uu dilay 3 milyan oo qof. hogaamiyeyaasha waaweyn ee shuuciga ee sheeganna sida liiniin, stalin iyo jeerman mawgii shiinaha midkiiba waxaa ka dhex qaylinaya dad 40, 50 iyo 60 milyan oo qof ah oo isagu laayay oo inba uu si uunu gumaaday. waxaa sii dheer waayihii dagaalkii qaboobaa, dagaaladii ay ridayeen ee ummadaha inta labada saldhig loo qaybiyey maraykan iyo ruush midiba uu saldhig soo hogaamiyey, iyada oo haddana isku hal xafiis uun looga taliyo labadoodaba ee sida kuuriyooyinka oo kale. inta madaxa la isugu geliyey malaayiinta qof ay ku naf waayeen waxaa isaguna ka mid ah dagaalkaas biolojiga ah ee cudurrada maanmeedhka ama dadsameegaa lagu farsameeyo ee lagu diyaariyo. cudurradaasna waxaa ugu mudan kii ebola ee ku dhuftay galbeedka afrika oo 100 ka xumaa koroonaha. haddana hadalhayntiisa aan sidaas loo maqal ee la iska shuurinayay markii intii loo baahnaa inay madhaan uu galaaftayna dawadiisii oo la hayey la keenay ee dadkii intii soo hadhay la daweeyey. sidaasna maxabadii dadkaas caamada ee aan waxba fahansanayn lagu kasbaday. masiibooyinka ay sida dadban u maalgashadaan ee dilka aamusan ee negatifka u adeegsadaan waxaa ka mid ah cudurkii ka dilaacay isbaanishka ee influenzaha ee 50 milyan ee qof ku dhinteen. waxaa isaguna ka mid ahaa dagaalkii Congo oo sida lagu xuso taariikhda kadib dagaalkii labaad ee dunida ahaa dagaalkii ugu xumaa ee soo mara adduunka oo ay 5 milyan oo qof ku naf waayeen. waxaa ka mid ah faafitaanka macaluusha oo waddan sida Soomaaliya iyo Suudaan oo kale ah oo beerashada ku habboon oo hodan ah ayaa xasilooni darro siyaasadeed laga ridayaa. marka uu qalanqal dhacana waxaa burburaya nidaamkii dowladdii adkeyd ee bad iyo bariba ilaashanaysayna marka ay meesha ka baxdo waxaa hawada lagu buufinayaa sunta chemtrail ee kala erida isu ururka uumiga hawada ku jira. haddii ay daruur roob sidaa timaadana kala caydhiya ee garoomada lagu buufiyo marka kubadda lagu ciyaarayo ee roobku uu qabto. suntaasi marka ay roobkii sanadkaas dadkaas seejiso dadkoodana ay dowladda ka khalqasho ee wax si caadiya ugu soo digayaana aanay jirin, beerihiina aanay beeran, macaluulaya ummaddaas ka dilaacaysa. inta la doonayo inay madhataa marka ay meesha ka baxaanna inta soo hadhay ayaa qamandi iyo raashin faraguudkood ah oo nafta un lagu sasabayo inay jidhka ku sii jirto loo qaybiyaa, iyaga oo weliba dulinimo iyo mahaano ay ka muuqato oo yeesan. qaabkaasina waa qaabka dadban ee masiibooyinka loo maalgashado si tirada dadka loo dhimo.
haddaba maalgashiga masiibooyinka ta ugu saamaynta badan ee inta kale waa xillile ama waa wax mar uun dhaca oo dhammaade iyadu joogtada ah ee shaqooyinkaas laga doonayo oo dhanna qabanaysa weligeedna ummaddaas calaacasha ama baabacada ku haynaysa waa maalgashiga masiibooyinka dhaqaale. tusaale, dadkii haddii uu fuqaro aan waxba haysan yahay halkii ay ku fikri lahaayeen inay ubad dhalaan oo nolol raaxo leh ku noolaadaan waxay ku fikirayaan sidii ay quutalyoomkooda ku heli lahaayeen. tarantii ayaa hoos u dhacaysa, guurkii ayaa yaraanaya, mas-uuliyaddii qofku isa saarayay ayaa yaraanaysa, qof walibana waa maxaan cunaa. sidee haddaba aynu dadka sidaas uga dhigi karnaa? waddan walba aynu dhanka dhaqaalaha ka marno, dhaqaalahaasna waxaa saldhig u ah dayn uun. waddan walba masiibo ka rid, marka uu ka soo kaban kari waayana bangigaas ay maasuuniyaddu gacanta ku haysaa deyn ha siiyo, dadka iyo dowladduna addoommo ha u noqdaan bangiga. waddamo aad u badanna waa lagu fuliyey qorshahaas. waxay rideen dagaaladii waaweynaa ee adduunka ee labada ahaa. muddooyinkaas wax soo saarka yurub wuu istaagay, waxaana adduunka wax soo saarkiisa gacanta ku dhigay Maraykan. wax walbana warshadaha Maraykan ayaa soo saari jiray, balse ma ahayn wax dadka Maraykanku ay ka faa'iidayaan, waxay ahaayeen warshado bangiyadaas iyo shirkado gaar oo ay maasuuniyaddu leeyihiin u shaqaynayay. qodobkaas oo hanti laxaadle u xireeyey nidaamka raasamaaliga ee dalkaas. dowladaha kale waxyaabaha ay ku gadanayaan badeecadahaasna waa la deymin jiray oo isla bangiga ayay ka qaadan jireen. markii dagaalkii uu dhammaadayna raasamaaligii Maraykan wuu isbarkaday oo wuu dhaqaaqi waayey, waxaana ay oogeen dagaalkii qabooba oo ay nidaamkoodaas adduunka ku gaadhsiinayaan. markaas ayuuna si rasmiya u bilaabmay qorshaha maalgashiga masiibooyinku. marka masiibadaas dalkaas ku dhabsatay la maalgashado ee la deymiyo hantina, iska daa inay dowladdaasi ku horumarto oo dhiggeeda kula tartanto waxay awoodi weydaa in ay deynkaas iska qaato. qaabka dowladahaas looga samaysanayo masiibadaas la maalgashanayaana waxay ahayd dowlad walba la kulma mashaariic horumarineed iyo sheeko aad hunguri kaga soo ridaysaan ula taga. haddii ay aqbalaan iyaguna way isu tudheen, innagana howl ayay inaga furteen. haddii kalena ugu hanjaba oo uga cagajugleeya masiibooyin inay dalkooda ka ridi doontaan. hanjabaadaas dabadeed haddii ay wax ku qaadan waayaanna rida masiibooyinkaas. marka ay shacabku dhibta dareemaanna haddii ay ku wax qaadan waayaan kuwa dowladdu inqilaab ku ooga, shacabkana ku kiciya oo kacdoon dalkaas ka dhiga. haddii uu kacdoonkaasi fashilmana ninkaas dilaba. qorshahaas ayaa la dejiyey. hogaamiyihii koowaad ee lagu fuliyey waxa uu ahaa Maxamed Musadiqii Iiraan. ninkaas oo ka dhiga adeegay in sanduuqaas deymihiisa uu qaato oo Maraykanka oo askariga horboodaya deynkaas iyo sanduuqaasi uu dalkaas gacanta ku dhigo oo uu ka dhiga adeegay, waxaana lagu oogay kacdoon shacab. markii laga tuuray xilkana waxaa la geliyey xabsi keliyeed lagu ilaalinayo hoggaankaas si aan u kashifin sirtaas. halkaas ayuuna ku dhintay. dalkii labaad ee lagu fuliyey waxa uu ahaa waddanka Chile. waa dal dhaca Ameerikada Laatiinka, waana dal isku filaanshiyo joogay, dhanka xorriyadda ganacsiga heer ka joogay, dowladdiisuna ay shacabka nolol sharfoon siiso, doorashooyinku ay si caadiya u dhacaan. balse ninka hogaaminayay waxa uu adeegsanayay ajendayaal iyo qorshayaal gebi ahaanba ka gedisan kuwii uu la doonayay adduunka. sanduuqaas deynbixiyaha ah kadibna askartii sanduuqaas howlgalladiisa fuliye ee la yidhaahdo Maraykanka ayaa dalkaas faragelin toosa ku sameeyey. hogaamiyihii Maraykanka ee Nixonna caadi ayuu arrinkan uga hadlay. sirdoonka Maraykanka iyo inqilaab wada iskaashanayaana waxay xilka ka tuureen madaxweynahaas dalkiisa dhisay, waxaana uu noqday dal afgembi ciidan lagu qabsaday. ninkaas ayaana dadkii reer Chile iyo dadkiiba qorshahaasi sidii uu ahaa u marsiiyey oo sanduuqaas u gacan geliyey oo dalkii ka dhigay mid addoon u ah sanduuqa deynbixiyaha ah. masiibadii dalkaas ku habsatayna waxa ay sababtay in uu ka dhaco sixir barar kor u kacay 375 boqolkiiba, yacni shaygii 1,000 shilin ee laanta ahaa 375 jeer ayuu labanlaabmay. markaas wuxuu marayay 376 shilin. fuqaradii iyo masiibooyinkii ka dhashay faqriga ee ahaa cudurrada iyo jariimooyinka ama rabshadaha iyo dilalkuna xadka ayay ka baxeen. xasilooni darraduna waa hooyada dhibaatooyinka oo dhan. haddana waxaa lagu fuliyey inqilaabka noocaas oo kale ah waddanka Argentiin si iyagana loo marsiiyo ujeedkaas laga lahaa. markaasaa iyadana la marsiiyey waddadii Chile la marsiiyey. deegaanada caalamka islaamka hogaamiyeyaashii kale taliska ahaa ayaa aad loogu adeegsaday in ay dadkooda iyo dalalkoodaba sanduuqaas addoomo uga dhigaan. oo idinkii dhowaanahan maqlayay in Soomaaliyaba deymihii lagu lahaa qaarkood laga cafiyey, laakiin ogaada deynkaas la cafiyey waxaa lagu goostay wax aad u weyn oo aan dhayar ahayn oo ay siyaasiyiinta maanta joogtaa qarinayaan. laakiin aynu dib ka ogaan doonno kolay noqoto gobolkaas Kismaayo ee ay Kenyaanku u jeelan yihiin in Kenya la siiyeyna haddii aynu isnidhaahno
dabada ka gala dalalka qorshahan lagu fuliyey waxa ay keensanaysaa in aynu wax ka badan 100 dal tirinno se waxa aynu kaga koobsanaynaa dowlad kasta oo muddo dhisnayd waa dowlad u hoggaansantay sida uu ka doonayay sanduuqaasi ee ah in ay isaga hoos timaado haddii kale waxaa lagaa ridayaa masiibo adigu mar walba dhibaatadaasi way dhacaysaa ee maxalka fudud ee ah inaad dadka ku tiraahdo mashaariic ayaan fulinaynaa kadibna aad dayn madaxa u geliso ayaa dooran sidaasna ay dhammaantood addoommo noogu noqdaan mise xalka qadhaadh ee ah inaannu dalka masiibo ka ridno oo sidaas maantaba ay ku sameeyaan turkiga marba lacagtaada dhulka la dhacno oo dalkaaga dhaqaale burbur ka samayno oo shacabkaaga kugu kicinno kadibna aanu iyaga iyo dalkaba sidaas ku hantino ayaa dooran haddaba maxaa loo maalgashanayaa masiibooyinka jawaabta oo koobani waa in qorshe kasta oo ay doonayaan uu si iswadis ah ama awtomaatiga ugu dhaco ay sababtu tahay waxay leeyihiin iyagu taranteennu yaraynaynaa ummad faqri ahi waxna dhali mayso ubad badanna ma doonayso oo bariiskooda eryanayaan akhlaaqdaynu dilaynaa ummad faqri ahi anshax iyo akhlaaq dhowri mayso ee qofkii lacag la tusaa wax walba uu samaynayaa inaynu deyn badan ku yeelanno ayaynu doonaynaa ummad faqri ah xataa haddii aad $1 oo deyna u bandhigto way kaa qaadanayaan sidaa awgeed ummad walba maxaynu uga dhigi weynay fuqaro oo heedhe qaar baa jira sidooda u horumarsan oo aan fuqaro laga dhigi karine dee iyagana dhanka cashuuraha ayaynu ka maraynaa oo cirka ayaynu ku geynaynaa dhanka kalena badeecadaha iyo baahiyaha asaasiga ayaynu qiimaha ku kululeynaynaa sidaasna gacantooda shininba uga hadhi maayo sidaas ayaa loo maalgashadaa masiibooyinka dagaalka noocaas ahina waa dagaalka maanta ka jira caalamka dhaqaalaha iyo bankigaas adduunka wax deymiya waana qorshahan aynu ugu magac darnay maalgashiga masiibooyinka tolow soomaalida imise masiibo ayaa lagu maalgashaday si deyn intee leeg ayaa lagu leeyahay ummaddan Soomaaliyeed wasalaamu calaykum